السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستاذ برا معد صلاة محمود برا إميريسو أعرف كلا سعوتين channel كبرا إميريسو هي فيسبوك معد برا معد صلاة محمود يو channel كأما ويب سايت كبرا إميريسو blogspot.com أما healacademy.blogspot.com meelahaas oo dhammaan aad ka heli kartiin casharada naduulaha idmo iyo Facebook page-ka oo casharada aad si toos uga daalacan karto oo ah bara Emirates asagana Facebook-ka ku qorto page oo ku soo bixi doona naduulaha idmo iyo Twitter-ka asagana bara Emirates oo ah Instagram-ka bara Emirates oo ah iyo waxa loo yaqaan Snapchat-ka asagana aan ku gudbino video-yaal qaar goos ah oo bara Emirates oo ah soo dhawaada marka ardayda uma barayna gruubyada casharada sida tooska ula socon uguna xiran channel-ka أنا كاسي أتصل هاي مركز تكون هذه لها إني وجود بيان بالشدة كله معناها أصحاب تودا مدام أنا أي أصحاب عن هاي أصحاب تودا كله إني وجود بيان أو شهر جريان أو شهر جريان بالقصة سما دام تاي واحد بالشدة أنفعايو وعايق أنا معناها أي هلان جودي كوبيان ولا كلام إني وجود بيان إنه فيديو مركز الستوس أو كوسو قالوا أو فيديو كاستي أصادق وأركتنا إنها سبسكرايب لحظة أو ماشى هو سي سبسكرايب كات كله في يوتيوب iyo inaad casharka comment ka soo baxsato su'aashii ku dhibtaad soo weydiisan karto comment-ga inaad tala iyo tusaale comment-ga noogu soo bixiso iyo casharka si aan u aragno xiisiisa inaad like aad dhahdo oo aadan ka wahsan haduu ilaahay ma waxa aad waxba ku dhibeen laakiin waxyaabo badan aan ku dareemi karno ku daraasay karno habka channel-ka loogu xiray qaabkiisa عشرة كمان تروح برضه chapter 2 أو grade 11 كادو لها إنه إحنا مرة عادي ونص على بيج كتومي استعداد بيج كتومي استعداد بيولوجي grade 11 كانوا مرة chapter 2 جيسا قلينا حضرتان chapter فيديوش كان كوري chapter بوجا وحلسو قلي فيديو كود وskeletal system يشونتسكا فيديو قلبات نصين chapter 1 كاسيميد أو muscular system فيديو قصدحان وskeletal وانتكا مدرسة system ومقارك بسميت كيس فيديو كمان تسوق لي إنه مركو حواي دولاهيد من chapter 2 nutrition digestion لابد أن كل قاعدة إنه واحد كلا برضو نهارت كو nutrition إنه برانه وقوت كواي حب كواي أبان لقون القوت واي فيتامين نفقة الشركة كهرو nutrients أو كهرو إنه أيضا برانه حق صارن كبعد إنه ما هو to digest سيلوشي ده process كمعناها سيبه لو بربريها واحد لابد قابة وكلا برضو وكلا قاعدة هنا هدان كلنا مركا أنت أنا لابد بوجود قليل وح مهم عشر كود إنه قاعدة نحلو يقنع chemical compounds isku dhisida kiimikaaleed ee ka sameeyay noolo maxaa leeyahay hadaba sidaan u soonahay cells-ka oo unugyada ah tissues nudayaasha ay organism xubnaha ah composed waxay ka kooban yihiin of chemicals which are referred to as waxyaabo chemical ah oo lagu magacaabo chemical of life nolosha macnaha chemicals iska maarmi karo obtained from the environment kuwaas oo ay ka hantaan ama ka helaan deegaankooda hadaba the study of the chemical compounds found in living organism barashada waxyaabaha chemicalka ee laga helo noolaha a reaction iyo falgalada in which they are take part falgalada habka uga qayb qaataan isnaan aan wax ku magacaabo biochemistry waa branch of biology waana branch of macnaha waxa loo yaqaan chemistry waa laba chemistry iyo biology meesha laanta kaliya macnaha laba badan oo qeylad laanta ugu weyn ee macnaha isku dhagaan labadooda waa biochemistry bio oo life ah iyo chemistry chemical ah biochemical waa marka oo noolaha bio life ka ay ahayd chemical chemistry chemical ay tahay waa chemical laga helo noolaha هذا this study attempts to review the chemical composition of living systems برشاد على برتباي chemistry واحد معناها دب ملعس وسميسا وحياة كيميكالات إنه كسميسين هاي one of these chemicals كسوا radical to that found non-living organic matter وعلى جاه وحياة من نولها إني لمديهن وحياة على جاه المرة قار radical إيهن سكس طبعا نقطة وشال consider waxaan tixgeli doonaa chemical kan nolosha laga helo kuwa soo socda xooga saari doona oo maxay kala yihiin saddexdan ayaan sharaxaad badan ka bixi doona mid kasta qaybaheeda functionkeediisa oo shaqeysa ayaan xooga ka saari doona waa mid koowaad waa carbohydrate ayaan baran doonaa waa wax alaale wixii dhirta laga helo oo u badan lipids oo dufan ah oo xayawaan gooni u ah iyo protein ko laga helo animals balance labadaba laga helo ayaan baran doonaa mid kasta qaab dhismeedkiisa qaabka uu sameysmo waxyaabahaas aan baran doonaa insha Allah
midka koowaad carbohydrates waa isku dhisyadaas oo ka kooban carbon, hydrogen iyo oxygen. saddexda ayay ka kooban yihiin. the elementskaas marka ay ka kooban yihiin ratioga ama saamigalkooda waa 1 carbon noqonayaan, 2 hydrogen iyo 1 oxygen. habkii iskugu dhigayaan qaacidahan waan arki doonaa. markaas waxay ku siinaysaa carbohydrate inay formulahan qaadato oo ah 1 carbon, 2 hydrogen iyo 1 oxygen. macnaha n meesha isku dhiganta int waxay u taagan tahay numberka macnaha carbon atomiska ee molecule-kan ku jira of carbohydrate uu leeyahay. carbohydrate kan si qaybi karnaa waxaan u qaybinaynaa 3 essential ama asaasiya: monosaccharide oo hal sokore aan dhahno, disaccharide oo laba sokore aan dhahno, iyo polysaccharide oo sokor badnaa. marka sokorta reelka waa monosaccharide, disaccharide way noqon kartaa, laakiin polysaccharide marka qaar sokorta lagu sheego oo waxyaabaha kale oo halaalan u arki doonaa. monosaccharide the simplest carbohydrates was mid carbohydrate ugu fudud, have a general formula leeyahay qaacida asagana oo sidii ka tiyo lamid ah. waxay ku kala duunaa karaan inta waxay tahay number 6 ay noqonaysaa. sida daraaddeed chemical formula maxay noqonaysaa marka ku dhufo 6 qaacidada number n ku bedel ku wada dhufo. markaad ku wada dhufo meesha carbonka 6 noqonaa, hydrogenka 2 ku dhaco 12 noqonaa, oxygenka wuxuu noqonaa 6 noqonaa. for example waxaa kamid ah marka haddaan ka bixino glucose-ka oo muhiim ah oo jirka bini'aadamka wuxuu ku nool yahay ah fructose-ka iyo galactose simple carbohydrates oo formulahan dhammaantood ka sameyn yihiin. astaamo maxay lahaan karaan dabeecado properties-ka ee leedahay ama dabeecadaha ay leeyihiin monosaccharides maxaa kamid monosaccharides are soluble in water. astaanta kood qabo biyaha ayuu ku milmaan. astaanta kood maxaan leeyahay biyaha ayuu ku milmaan. number astaanta labaad form sweet tasting solution. markii biyaha ku milmaan milanka soo baxaayo wuxuu noqonaa dhadhan macaan oo yeelana sweet taste fruits, macnaha dhadhanka oo macnaha miraha ama macaanka ah ay leeyihiin property ahaan ama astaan ahaan. the abundant content of monosaccharide in them marka ku badatana macaanku sii badana. when monosaccharide are mixed with bidic solution oo normal la diyaariyo waaye markaan ku qasno waxaa dhaynaa haddana la kululeeyo. the copper sulfate is reduced to red copper, one oxide ay isku bedelaysaa. haddaba waxaas das waa chemical ahaan markaan u fiirinay sidaas daraadeed describe waxaa lagu qeexaa reducing sugars, sokoraha la yiriyo. macnaha they are still inable macnaha waa dry ahaan jiridooda ay noqonaysa ama dry ahaan qururax camal inay noqoto. moleculeska oo monosaccharide waxaa leenahay link together si wada jiri isku xiran yihiin iyadoo ay sameynayaan markaas complex carbohydrate molecules. markay isku tagaan moleculeska monosaccharide waxay sameeyaan wax loo yaqaano isku dhisyo waaweyn oo ah carbohydrates iyo wixii lamid processes marka waxaa imaanayo oo qaabkaas isku dhigayaan oo laba sokor iyo wax ka badan isku dhigayaan markii qaacidooyinka isku dhigto ama ay isdhex galaan wax lagu magacaabo processkaas condensation lagu magacaabo. haddii falgalkaas markuu dhacayo water moleculeska ayaa sameysma oo soo baxa markay isku ku dhigaan water moleculeska banaanka loo saaro. tusaale 2 glucose molecule haddii 2 glucose molecule soo qaadano can be condensed. isku falgal reaction ay sameeyaan condense ay sameeyaan link together to form waxay sameeyaan wax loo yaqaan 1 molecule of disaccharide plus water. waxay sameeyaan in biyo iska ma bixiyaan labadoodina ay sameeyaan isku dhigaan disaccharide oo ah qaybta labaad ee macna loo yaqaan ama astaanta labaad dabeecadda labaad ama qaybta labaad ee noo ah carbohydrate. astaamahooda hadda aragna shaqadooda maxaa ugu muhiimsan. shaqadooda laba ugu soo kala qaadayna waxaan leenahay shaqadooda ugu muhiimsan waxa weeye monosaccharides can oxidize during respiration to release energy. waxaa lagu sameeyaa oxidize waa la gubaa si ay u soo daayaan respiration inta lagu guda jiro oo cell respiration waa hore u soo aragnay waa chemical and macnaha breakdown of the substance in the cell kan uu sameeyo si energy loo soo daayo. glucose marka common respiratory substrate ama nooca cuntada ee ugu caansan wahay ee lagu sameeyo the most common monosaccharide noita monosaccharide kuwa ugu caansan noita. when condensed together b marka shaqada labaad fiirino markay condensed together ay sameeyay form waxay sameeyaan polysaccharide sameey karaan sokor badnay sameey karaan such as the starch is cellulose sameeyaan oo dhirta labadaba laga helo. glucose can be converted oo asaga animals ka laga helo waa la bedelaa into glycogen ayaa loo bedelaa. glucose ka laga wada heli karaa glycogen loo bedelo. glycogen marka laga loo bedelo beerka la geena beerka markii la bedelo enzyme lagu studiyo enzymadaas way bedelaan glycogen markii loo bedelo kadib bacdi waxa lagu kaydiyaa storing in animal tissue murqayaasha iyo beerka iyo nudayaasha kale xayawaanka ayaa lagu kaydiyaa si markii loo baahdo oo qofka baahi u qabato energy-gan oo energy-giisa daciif noqdo loo soo daayo. factor-kaas ayay macnaha sameeyaan shaqadooda ugu muhiimsan waa taas. midda labaad waxa lagu magacaabaa disaccharide.
disaccharideska maxay sameystaan they are forming waxay ka sameysmaan they are forming linking to monosaccharide molecules through the process of condensation hore aan soo sheegnay si u sameysmaan waxay ku sameysmaan laba monosaccharide oo macnaha isku dhigtay laba molecule oo monosaccharide oo isku dhigay ayagoo soo marayaan condensation sidaas daraadeed macnaha therefore hadaba the more complex than monosaccharide markii monosaccharide aan barbar dhigno way ka kan tahay macnaha way aad bis ku dhigeen the formation from two monosaccharide ay ka imaadaan loss of water molecule in biyo la dhumiyo example kuna wuxuu noogu qorayaa sida hoos markaan soo qaadano monosaccharide plus monosaccharide condensation process kala dhahay la mariyo waxa soo baxay disaccharide plus water sida hore kugu soo sheegay aan soo qaadano marka monosaccharide plus monosaccharide glucose waxaan ku darno glucose maadaama glucose ku darno waxa noo soo baxay waxa loo yaqaan fructose plus water ayaa soo baxay markana maltose plus water ayaa soo baxay markaan ku darno glucose plus fructose oo aan ku darno glucose iyo fructose aan isku darnaan waxa noo soo baxay ayagana sucrose aan noo soo baxay laakiin ta kore waa fructose ya hada glucose ku darno fructose hada glucose ku darno waa maltose hada glucose fructose ku darno waa sucrose laha oo disaccharide macnaha inta kugu xusan oo shaxdan marka water create shaxdan waxay ku noqonaysaa dhinacan maltose sucrose lactose waxay ku noqonayaan disaccharide ku noqonayaan kuwa dhinacana waxa loo yaqaan waxay noqonayaan monosaccharide isku daray ay noqonayaan to monosaccharide isku daray habka ay u sameeyaan markastana biyaha laga saaro oo biyo bixinaya sameeyaan the above equation marka equationada kale can be concluded that the type of disaccharide formed waxa la soo gabagabay karaa ama go'aan loo gaari karaa nooca sokorta ee disaccharide ee sameysmi karta ayaa la go'aami karaa oo nidaamka loo yaqaano ayaa go'aami kara macnaha waxa loo yaqaan ayaa go'aami kara oo processes ayaa la go'aami karaa waxa la go'aami karaa processka macnaha qaabka u sameysmayso ayaa la go'aami karaa nidaamkeeda ayaa la go'aami karaa oo ugu waxan maadaama marka waxay ku xiran tahay depends on the monosaccharide unit that enter into the composition monosaccharide ka nooca oo yahay composition kan ama curuskan ku jira ayay ka koobantaa ama isku dhiskan ku jira properties of disaccharide maxaa leena like the monosaccharide sida monosaccharide ka kaaga dhow yihiin disaccharide ka soluble in water sida monosaccharide biyaha way ku milmi karaan produce wax soo daayaan sweet testing solution macaan ay noqdaan the sugar cane kamida qasabka macnaha oo rich in sucrose qani ku tahay this juice is processed to make ordinary sugar juice kaas ama sucrose kaas waa la process kareeyaa si looga soo daayo sokor caadi si looga soo saaro some disaccharides such as sucrose cannot reduce copper sulfate hore u soo marna ma lagu yaray kara belict solution marka la diyaar solution kala diyaar marka lagu daro unless they are fast broken down into the constant monosaccharide illa la burburiyo monosaccharide ka ee laga disaccharide ka la burburiyo monosaccharide loo bedelay dib reaction ka loo celiyo baag waa loo celiyo ayaga solution ka ma ku milmi karo they are marka therefore now na soo ku magacaabay non reducing sugar sukra ala yaray karin ama aan guban macna hadaba disaccharide ka such as maltose reduce copper sulfate ay yaray karta waxa loo yaqaan bidix solution marka leenahay oo la kululeeyo si wada jir loo kululeeyo process waxa lagu magacaabo complex reduce sugar salaha disaccharides can readily be broken up disaccharides marka si caadi ah waxay diyaar u yihiin inay burburaan ay kala furfurmaan inta macnaha monosaccharide ka kooban yihiin molecules waxayna ku xirantaa hadar process la dhahay hydrolysis biyo macnaha ku darid ayaa la isticmaalaa macnaha oo the process involves splitting of complex molecules into the presence of water biyo lagu darsana ka bacdina waa kala saar biyo marka hore laga saaray si loo kala fujiyo hadda biyaha dib loo isticmaalo waa kana processkii disaccharide plus water disaccharide nooca biyo ku darnay waxa soo baxay glucose ayaa furfurmay macnaha oo to monosaccharide oo soo baxay sucrose hadii water lagu daro waxa soo baxay glucose fructose dib u celi reaction maltose hadii lagu daro waxa glucose lactose maltose hadii biyo lagu daro waxa soo baxay glucose macnaha hadaba in nature sida dabiiciga disaccharide ka hydrolyzed by enzymes ayaa loo isticmaalaa in laboratory shabaarayaasha la isticmaalaa hydrolysis can be carried by heating them with acids such as dilute hydrochloric acid waxay lamid macna oo acid marka lagu kululeeyo ay bixi kartaa qaabka waxaan ku barnay waxa loo yaqaan astaamihiida ayaan ka soo baxnay shaqo maxay qabataa shaqada ay qabato waxa weeye sakrado si qeexanta hydrolyzed by enzymes ayaa loo isticmaalaa si biyo loogu daro oo looga saaro monosaccharide si loo isku bedelo oxidize oo loo gubo oxidize markay sameeyaan waxa qasab ah inay soo baxaan release energy oo ah tamar in la soo daayo nooca saddexaad ee carbohydrates wuxuu noo ahaa polysaccharides are made up of many monosaccharide molecule monosaccharide badan ayay ka sameysman karaan ama ay ka kooban yihiin
maadaama monosaccharides badan ay ka kooban yihiin waxa loo yaqaan waxa imaanayo das hadaba the molecules are long and complex isku dhisidoodu waa dheer yihiin wax ka yihiin the general formula leeyihiin oo 6 carbon 10 hydrogen iyo 3 oxygen ah intuna u taagantaa the value qiimaha oo macnaha si weynaanayo qiimo weyn u taagantaa monosaccharides marka commonly found waxay caan ku tahay cellulose iyo starch oo laga helo dhirta weel glycogen oo soo galay oo laga helo animal tissue oo ah glucose markii la bedelayo oo conversion loo bedelayo okay kuwan ka soo farcama saddexdan ka soo farcanta mid u fiirinayna muhiimadda starch is present stored in food in the plant tissue nudayaasha dhirtu waa habka cuntada ku kaydsan ee lagu magacaabo starch oo sokorta dhirtu kaydsato it's formed by condensation ay ku samaysan of large number of molecules in condensation lagu sameeyo plants therefore rich in starch ay qani ka yihiin sida maize-ki wheat-ki potatoes-ki rice-ki oo anaga starch-kaasi nudayaasha waxa loo isticmaalaa grown as a source of food isha qeyra cuntada laga helo amalan u kartaa cellulose exist the component of the cell wall waa meerax ay Soomaaliga lagu dhahaa mararka qaar inkastoo meeraxda ay ka yareeyaan karaan waa plantska gidaar darbiyeedkeed wax ka kooban it made of more molecules of monosaccharides ka kooban then starch marka loo fiiriyo cellulose gives the plant cell wuxuu siiyaa definite shape muuqaalka ayuu siiyaa iyo qaabka shakliga uu ekaanayo geed glycogen ayadoo represent as stored carbohydrates in animal tissue bis ayaa lagu keediyaa glycogen is a taste from excess glucose dheeraad markay jirka soo gashay ayaa la bedelaa oo lagu sameeyaa properties ka ilaada monosaccharides maxaa kamid all monosaccharides ka sokor badnaya insoluble water qabsoort biyaha kuma min do not have sweetness macaan ma therefore they are referred to as non-sugars waxaan dhihi karnaa si kooban sokor ma aha historic questions kan waa shirkada soo marayna name the carbohydrates or stored in plant circle lagu keediyo stored in mammalian muscles lagu keediyo most abundant in human blood midka u badan summarize the main functions of carbohydrates in living so koob shaqada ugu weyn ee qabtaan macnaha carbohydrates in nidaamka waxaan galeynaa qaybta labaad oo ah chemical living ay ka kooban tahay waxaan lagu magacaabaa lipids marka maadaama dhiman carbohydrates waxa noogu dhiman waxa ina si kama duulahaydmo saddex section oo ka kooban yahay nutrition lipids ayagu way iska kooban yihiin waxay u badan yihiin ama badan laga helaa sida caadiga ah ama caamka animalska badan lagama helo ayaga wax loo yaqaano lipid ahaan si toos ah markii oilka laga reebo aan arki doonaayo wax loo qaybiyaa lipids-ka oil iyo fat oil-iska dhirta waa laga helaa way ku badan tahay laakiin fats-ka ama lipids-ka dufanka caadiga wuxuu ku badan yahay ee cadiinta ah animals-ka ku badan yahay marka lipids-ka ayada waxaan ku qeexi karnaa fats and oils waxaan u kala qeexaynaa fats and oils waa dufan iyo saliid macnaha fats-ka waxaan ku sheegaynaa found in animals-ka waxaa laga helaa xayawaanaadka well halka oils-kana laga helo in dhirta caleemaheeda miraheeda iyo iniinteeda laga helo haddaba si kasta ha noqotay few animals such as whales contain oil sida whaleska oo macnaha libax badeedka may dhahaan ama libiriga saa u taqaanaba ayaa laga hela wax loo yaqaano oilka inta kale dhirta u badan fats and oils labaduba similar waa isku mid except marka laga reebo that oils are liquid halka inay saliidu tahay macnaha dareere well fats are solid at room temperature halka dufankuna uu yahay ama duxduna ay tahay wax loo yaqaano adke marka la joogo heerkulka caadiga like carbohydrates sida carbohydrate-ka they are compounds of carbon hydrogen and oxygen waxay ka kooban yihiin isku dhisidii ay ka koobnaayeen saddexda xoriye ayay ka kooban yihiin carbon iyo hydrogen iyo oxygen haddaba si kastaba noqotee the number of oxygen atoms are fewer in lipids than in carbohydrates markii numberka oxygen-ka la fiirinayo waa ka yaryahay lipids-ku marka loo fiiriyo carbohydrate-ka haddaba waxaan leenahay the building unit of lipids as ka dhismato lipids waxaa lagu magacaabaa fat acids and glycerol iyo fat acid ayaan dhehna haddaba glycerol iyo fat acids sidoo ku sameysmaa marka synthesis of lipids molecules require 3 fat acids molecules condensing with 1 molecule of glycerol si ay ku sameysanto lipid molecule waxaa loo baahan yahay 3 fat acid oo isku dhis ah oo macnaha condensed ku sameysay hal molecule oo glycerol ah sida sawirka hoose kugu cad halkan waxa kugu qoran sawirka weynka ee balaar waxa waa glycerol hal glycerol lagu dhigay saddexdan goobaabin yarka waxa laga wadaa theory hoostooda fiiri 3 fat acid molecule lagu magacaaba condensation process kala marnayo markii la mariyo biyo ka saarida la sameeyo waxay soo sameeyeen triglycerol oo fat ah
tahay samaysan. Haddaba fat acids are different types, noocyo kala duwan leeyihiin. Therefore the nature of the lipids depend on the fat acids it contains, even though the glycerol is same as all lipids. waxay ku xiran tahay sida dabiiciga ah in macnaha nooca aan sheegno lipidiskan waxay ku xiran tahay fat acidska ay ka kooban tahay macnaha glycerolka, inkastoo ay lipidiska oo dhan glycerol isku mid ay leeyihiin. haddaba le carbohydrate sida isku dhiska carbohydrateska complex lipids are also formed in condensation process. lipidiska macnaha kuwooda kan ama adag waxay ka samaysmaan condensation process. examples of lipidiskas waxaa kuga mid ah phospholipids, wax, iyo cholesterol. phospholipids oo asaga membrane oo cell membrane caan ku yahay sida kusoo marnaba fomanka ama gradnanka boga ah, waxis oo xabagta iyo waxyaabaha lamid ah, steroids oo asagana qaab dhismeedku gooni oo fonforka uu tagi doono gooni uga hadli doono, iyo cholesterol oo ah dufanka markuu ama xeerta ay ku badato oo kan humanka badan oo macnaha dufan ahaan cudur ahaan ku dhaco markii xeertu badato. haddaan aragna lipidiska waxa loo yaqaan sharaxadeedii kooban astaamo maxay leedahay, shaqo maxay qabataa. properties of lipids when fats are heated caan waxay ku yihiin markii fatska la kululeeyo very readily change into liquid, si dhaqsi ay wax isku bedelaan dareere. well oilska saliida ahaana solidify lagu sameeyo la adkeeyo is subjected into low temperature. muhiimaduna ay tahay in heerkulkooda hoos loo dhigo waxay isku bedelayaan ayagana solid ayay bedelayaan oo solid loo bedeli karaa. halka macnaha both labadaba fats and oilska are insoluble in water, labadaba inaysan ku milmeen labadaba fats and oilska labadaba insoluble in water, biyaha kuma milmi karaan. however sixtama noqotay marka they will readily dissolve in organic solvents such as alcohol, ether and chloroform. waxay ku milmi karaan maadaama biyaha ku milmi karin waxaa loo yaqaano organic solventiga oo alcoholka kamid yahay, ether kamid yahay, loo yaqaano chloroform. waa macnaha functional groups oo chemistry oo ku tagi doono fonforka oo soo gudbiyo oo ku sharxay oo ku jiro. when fat and oils markay saliida iyo dufanka labadaba dissolve these organic solvents, waxyaabaha solventiga milaha organic markii lagu milo they form emulsion and suspensions. waxay sameeyaan emulsion and suspension oo laalaadsi macnaha kala furanaysa. lipids are quite inert, waa yaryihiin propertygooda macnaha marka la fiirinayo enables with them to the store in the tissue of organisms. waxaan u suurtagelinaya astaan ahaan inay ku kaydiyaan ama lagu kaydiyo nudayaasha macnaha oo noolaha. okay, the presence of the fats and oily substance can be easily detected by using sodium 3 diet sudan مش بقولنا sodium ولا غيره sodium I think saas inay tahay sodium 3 diet grace spot test and emulsion test. aduu processka marka la isticmaalo oo chemical substances ah tastigaas lagu tijaabiyo ayaa waxay imaanaysa waxa loo yaqaano inay noo imaato in la helo nooca oo yahay ama lagu ogaan karaa lipidiska inay meeshan ay oil xaadir ku yihiin walaxdan marka lagu sameeyo walaxdaas chemicalka lagu tijaabiyo. functionska ay lipidiska qabtaan, shaqada lipidiska qabtaan maxaa ugu muhiimsan shaqada lipidiska qabtaan. lipids waa sida noogu xusanba ilaa waxaan ka baran doonaa shanta qaybood maxay kala yihiin. lipids are source of energy, lipids waa isha energy ama tamarta. lipids are source of energy just like a monosaccharide, sida monosaccharide oo kale ay isha tamarta yihiin. a given weight of lipids will liberate almost twice as much energy as equivalent weight of the monosaccharide. haddaba culays lagu siiyay ee dufan ah lipidska ah macnaha energy aad ka heli karto wuxuu ka badan yahay ugu filnaanshaha aad macnaha monosaccharide aad ka heli karto. marka lipidska ayaa awood iyo tamar badan macnaha everybody qof noolo kasta noolaha kala lipid badan yahay means waa more energy badan yahay. as a source of metabolic water, in macnaha metabolic waa metabolism anabolism loo kala saara waa breakdown oo walaxda cell inuu burburiyo in water ahaan marka lagu burburina ay muhiim leedahay. when oxidized lipids marka lagu gubayo oxidase release more water, biyo badan soo baxayo energy then monosaccharides. marka loo fiiriyo monosaccharides energy water iyo biyo soo daayaan marka loo fiiriyo ka badan monosaccharides. such water is known as metabolic water,
biyaha macnaha oo selka ama shiidida waxyaaba ka qayb qaato which supplements are the requirement of the body kuwaasoo ah waxyaaba loo baahan yahay jirku macnaha oo muhiim u ah shaqooyin. This explains why some animals such as camels accumulate a large quantities of fat reserves their body and their metabolize these fats to obtain the metabolic water in addition to the energy release. waxaan ku sharaxi karnaa wax kale maahan oo sharaxaad ku sharaxi karnaa halka xayawaanaadka qaar sida geela camal ay u joogteeyaan large quantities of fat dufan badan ee macnaha u kaydiyaan jirkooda. dufankaas badan ee jirkooda ku kaydinayaan wuxuu u sahlayaa inay biyaha wax badan moogaadaan maadaama dufankaas badan uu soo deynayo waxa loo yaqaano energy plus water. That's why marka aan u dhahno geelu 30 beri uu qadi karaa hal bil ayuu qadi karaa macnaha oo qadi karaa laga wado biyo ka aan karaa taa ayaa waxay daliil noogu tahay waxa loo yaqaan fatiska in biyo ay soo daayaan ama biyo laga helo source of water ay yihiin. As structure compound qaab dhismeedkooda qaabku yahay shaqay u qabtaan. Lipids constituent of plasma membrane and protoplasm kuwa ka kooban plasma membrane iyo protoplasm oo cellka organelles of cells ka kamid yihiin oils storage materials some cells iyo inina qaar oo saliida keensada granules ka kamid oo looska ay castor seedka iyo maize green ka kamid oo kaleed wixii lamid waxyaabahaas marka waxa structure ku xiran tahay shaqadooda macna structure yaa loo fiirina. Number 6 heat insulation macna kulka inay naga xanimaan kulka inay naga celiyaan. In animals marka laga hadlayo fatska deposit under the skin maqaarka macnaha dufanka hoos saaran way it forms the deep tissue kawaas oo sameeyo unugyada deep tissue lagu magacaabo acts as heat insulator waxay u dhaqmaan ama macnaha u shaqeeyaan inay noo dareemaan waxa loo yaqaan inay naga ilaaliyaan kulka macnaha. In this way hadaba fatska marka fats maxay sameynayaan assisted to reduce waxay kaalmeynayaan ka caawinayaan inay heat to reduce heat loss from the bodies of mammals naasleyda heer kulka ee dhuminaya inay hoos u dhigaan ay naga kaalmeynayaan. hadaba mammals living in temperate regions meelaha qaboowada ah kuwa ku nool have a thick deposit tissue ay leeyihiin which greatly reduce meelaha kuleelaha temperature ku badan yahay meelaha kuwa ku nool waxay leeyihiin nudayaal badan oo macnaha dufan ah kuwaas oo ka yareynaya reduce heat loss ka macnaha inadii taasna waxa u sii dheer thick tissue ga oo adag nudaha deposit tissue oo adag some aquatic mammals help them to the beyond in water wuxuu ka kaalmeeyaa ayaga ruuxooda xitaa biyaha inay macnaha ay iska difaacaan kuwa marka aquatic la dhaho oo biyaha ku nool kuwa temperate ka waa arag deposit tissue protection qodobka shanaad ilaalin ayuu noo yihiin lipids wayna ilaaliyaan. Fats is deposit around the major organs such as kidney heartiga and the back of the eyeball where act shock absorber waxa xibin kasta muhiim wadnaha iyo macnaha wax kaliyaha iyo wadnaha iyo sanbabada ruuxooda xitaa xibin kasta muhiim xeer ayaa ku dahaar ariga iyo xoolaha markii la qalay waad aragtay wadnaha ugu badan iyo kaliyaha ugu badan iyo sanbabka macnaha ama heartiga iyo macnaha eyeballiska gadaashooda iyo macnaha waxa soo dhan lipids shaqadooda ugu badan waxa waa soap absorption inay nuuqaan ama naga yareeyaan shock ama argagax. si kale marka u fiirino the works of the plant cuticle markii laga hadlayo xabagta dhirta macnaha xubkooda ama geedkooda oo soo daayo reduce excess water loss ay soo daayo biyaha dhumaya ay yareeyaan. hadaba study these questions if glycerol hadii same all lipids oo lamid yahay what can corn oil different from coconut oil silida masagada galeyda way maxay uga duwan tahay silida qumbaha hadii dhammaan ay yihiin oo silidan maxamed calo marsal taasna madax calo marsal ay xamaan all line three properties of lipids ka istaamahooda sheeg. waxaan baraynaa qaybta ugu dambeysay waxa la yiraahdaa protein section nutrients kuwa ugu dambeeyay marka sidii loo shiidi lahaa aan galeynaa enzymes noo soo dhax galaayo oo asagana aan ku baro doonaa haduu ilaahay enzymes ayaa noogu xigsamaayo oo wax loo yaqaan asagana aan rajeynin inaan ku sii darsano insha Allah.
waxaan leenahay wax loo yaqaano proteins horta jirka koriya oo waxyaabaha isaga carbohydrate ka kooban yihiin sida lipids iyo carbohydrate aan soo sheegno muhiimad ay u yihiin waxyaabaha laga helo noolaha caadiga waa laga helaa dhirtana waa laga helaa miraha iyo waxyaabahaas oo dhan waan arki doonaa amino acid ayaa muhiim u ah hemoglobin nooc kamid oo dhiiggeena guduudka siisa protein waaye proteinaadka ama amino acids kaas waxaa la yiraahdaa functional unit oo shaqooyin badan u qabata qaab ahaana waan arkaynaa oo ilaahay protein sila carbohydrates and lipids proteinadu waa sida carbohydrate iyo lipids are components of carbons hydrogen and oxygen ka wada sameeyay saddexda si kastaba ha noqotee ana carbohydrates and lipids si ka duwan labadaanba they contain nitrogen mararka qaar nitrogen sometimes waxa ka sii daran phospholipid ma soo aragno iyo sulfur or both labadooda mid kamid ah phosphor and sulfur ama labadoodaba way hali karaan qoryaasha saddexda oo dheeraad waa nitrogen iyo phosphorus iyo sulfur oo dheeraad macnaha some proteiniska oo such as hemoglobin tan waxa u sii dheeraada macnaha such as iron qoryaha mart hemoglobin protein kan oo hemoglobin la dhahay protein ku kooban iron alayhi protein kaas waa mid ka macnaha protein made up of small units oo hore ku soo sheego lagu magacaabo amino acids 20 different types ay jirto amino acid way badan yihiin laakiin 20 essential as 20 ayaa jirto acron natural si dabiici u dhacda artificial ayaa jira way badan yihiin kuwa u dhaca all amino acid contain amino group qaacidadana ku arki kartaa dhamaantood qaacidadan ayaa lagu arki karaa oo ugu badanta NH which consists of hydrogen and nitrogen kaasoo ka kooban nitrogen iyo oxygen but like the number of carbon ayaa ku dheeyahay number of carbon ku kala duwan yihiin hal amino acid oo kale waxay ku kala duwan number of carbons ay ku kala duwan yihiin waxaan ugu tagi doonaa inuu ilaahay idmo chapter 3 chemistry form 4 ayaa meeshaas amino acids iyo protein structurally chemically aan u fiiri doonaa hadda functionally u fiirinayna iyo properties proteins are referred to as nitrogenous compounds ayaan ku sheegi karnaa sababtu waxay tahay presence of nitrogen in the structure qayb isboodkooda waxa ku jira nitrogen a single molecule hal isku dhis of protein can have hundreds or even thousands of amino acid units which are joined together hal isku dhis oo protein ayaa wuxuu lahaan karaa boqolaan ama kumanaan amino acid unit oo isku tagay macnaha le carbohydrates ka proteinska waxay sameeyaan condensation ay sameeyaan karaan the process ka marka combination to amino acid laba amino acid process ka isku tagaan waxa lagu magacaabaa dipeptide erga laba amino acid macnaha dipeptide dabarka waa daayigana waa labadii the bond between the two amino acids ka correct waxaan ku magacaabi karnaa peptide bond ayaa ku magacaabeynaa mid kasta oo u dhaxeeyo macnaha waxa loo yaqaano dabar kasta laba amino acid peptide bondigaas marka peptide asaga badanahay macnaha nooc ay ku xiran during the process water molecules formed inta hanaankaas lagu jiro biyo isku dhis biyo ayaa sameysmaan continued condensation leads to the addition for more amino acids to protein chain inay sii condensation ka sii socdo amino acids waxa imaanaya protein chain silsilad ayaa imaanaysa a long protein chain ee imaato waxa lagu magacaabaa polypeptide result ayaa ka imaana polypeptide waa peptide badan in isku dhagaan macnaha sida sawirka soo ku arki doona dramatically caadiga polypeptide the uniqueness of particular protein is determined by the type or sequence of amino acid it contains nooc gooni ah ee protein waxaan ku go'aamin karnaa nooca iyo tixda habkay ku taxan tahay nooca amino acidka iyo sequence-ga isku haysta amino acids theoretical marka laga hadlayo fikrad ahaan possible number of ways which amino acid could combine may lead to infinite number of protein inaan la ogaan karin mararka qaar suurtagal marka laga hadlayo nambaradooda habab kala duwan oo amino acidka isku tagto si kastaba ha noqotee it is not case since organism possess mechanism which control synthesis of specific protein case-kaas ma dhici karo ama ma badnaba noolaha marka laga hadlayo sababtoo waxay imaanay noolaha inuu proteinkiisa sabsameyso sidaa daraadeed the number of protein in life nolosha proteinka u baahan tahay much lower than is expected sida la filayo iyo protein loo baahan yahay way kala duwan yihiin waxaa kala maahan waa polypeptide two amino acid ayaa inta la keeno condensation lagu sameeyay waa kana labadii isku dhigtay water macnaha
halkan amino acid units 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 lagu sameeyay kan labadan lagu daray kabacdi kana lagu sii daray silsiladooda dhan propeptide ayaa lahaa hoos isku dhigeen ayagoo tiro badan waxaan fiiri doonaa astaamaha gooni ee u yihiin ama ay leeyihiin waxa loo yaqaano protein hadda sharaxaad structure-kan ka soo baxay iyo macnaha qeexitaanku most proteins dissolve water ko بروتينات بدنا بيكونوا لكن do not form true solution ميلان صح ما سميه they form colonial suspension ميلان ده web particles remain suspended in water halka subiya ku firfirqsiin ama ay kala laadaan waxyaabo sida caadiga soo aroor colonial particles ka have a very large surface area ay leeyahay baaxad duleed aad u wanaagsan ama u wanaagsan since they have strong capacity to absorb water and other substances they are important to hold the molecules position with our cell daas muhiimad waxay u tahay marka inay macnaa baaxad leeyihiin baaxadaas weynta waxay suurta gelinaysaa awood ay biyaha kusoo jiidaan dhuuqitaankooda awooddaas iyo waxyaabaha kale taasna muhiim waxay u tahay qabsashada ay is haystaan moleculeskaas iyo biyaha qaabka isku haystaan nidaamkooda ayay macnaha ku tiirsanta ama ku xiranta oo seerka macnaha proteinkaas oo ugu jiri karo most proteins are denatured temperature above way halaabaan ama way xargagaan ama way go'aan heer kulka badan 40 macnaha celsius the heat alters heer kulka oo wuxuu bedeli karaa qaab dhismeedka moleculeska oo leeyahay protein molecules bedelkaasna waxay imaan kartaa chemical or physical properties maybe protein waxay isbedeli kartaa chemical ahaan iyo physical ahaan labadaba sida daraadeed physiological activity holooda shaqada ee goonida ee u socoto ayaa dib u dhacay denaturing marka lagu sameeyo can also be caused by chemicals and acids base or detergents and organic solvents ama waxyaabo kale acid ama base keeni kara ama waxyaabo kale oo organic ama waxyaabo kale agential ah oo macnaha aqalad denaturing irreversible lama soo celi karo sida daraadeed permanent damage in protein in tissue nudahaas oo tissue-ga ku jira protein ku jira dabiici ah iyo macnaha oo qaladkaas uga dhacay dib loo soo celi karo protein have both acidic and basic properties labada waxay dhahan karaan inuu acidic noqdo inuu base noqdo macnaha due to this process marka loo fiiriyo properties kooda astaamooda waxyaabahaas waxa imaan kara wax loo yaqaan proteins-ka are described waxa ku magacaabi karnaa amphoteric maxay tahay react with acids or base this property waxay u suurta gelinaysaa protein campaign inay la falgalaan with non protein compounds isku dhisay aan protein ahayn si uu sameeyo conjugated protein u dhigma macna ama walax kale oo qalma oo protein for example in mucus mucusku waa diifka waxaa loo yaqaan ama malaxda garaasada amal waayo waxyaabaha caloosha laga helaa iyo sanka iyo waxyaabaha non protein compounds waa carbohydrate is a carbohydrate where hemoglobin and non-protein compounds in iron protein compound ahayn haddana iron ka kooban labadaba tusaalena carbohydrate ugu caansan waxaan fiirinaynaa shaqada ay protein ka qabtaan waxaan u fiiri doonaa structure function metabolic regulator ka joogtay source energy aan ka helno ayaan u fiiri doonaa structure ahaan shaqada u qabtaan plants ka saytes amino acids which build up the proteins this waxay sameystaan maadaama cuntada sameystaan amino acid ka ayaga sameeysto macnaha protein u dhismaa animals ka laakiin proteinaadku waxay ka helaan plants ka oo plants ka keli karaan oo then break them wala burburinaya sheetka lagu burburinaya amino acids ka to form animal protein ayay ka sameeyaan both plants and animals marka laga hadla labada protein waxaa loo isticmaalaa framework of living system ka nolosha inuu dhiso for example tusaalada aan soo qaadan plasma membrane ka qayb qaataan smooth connective tissue ka qayb qaataan muscle fibers ka qayb qaataan tinta ka qayb qaataan hooks ka qayb qaataan oo macnaha waxa loo yaqaan qoobka naadiska cadiyaha iyo skeletal materials iyo qolfafta dhan ka qayb qaataan muhiimada ay tahay jirka koritaankiisa waa protein ayuu macnaha muhiim u ah metabolic regulator waxyaabaha jirka cells ku gubanayo iyo qaabka u dhacayaan ayay joogteen enzymes and some hormones are protein in nature sida dabiiciga enzymes qaar proteinat ama hormoonada qaar oo enzymes ku darsada ayaa dabiici ahaan ama asaalan waxay ka yimaadaan protein enzymes ka organic catalyst enzyme hada maqasho wada dejiye wax organic oo dejiye catalyst wada dejiye which speed up xawaara geliyaan metabolic reaction metabolic dhacay ay geliyaan das hadaba they control the rate حدي كنترول كرام معمول كرام وش ميتابوليزم تكس بلس أو كذا ميتابوليزم خاب كذا أي كنترول كرام أو أقسم كرام وحلو يقين هذا هرمونس ككيميكال إنسان كذا إحنا هرمونس معنا كيميكال مسيجر سواء معنا دمبال سيديال دمبال بحيال كيميكال سواء كواسو أو رقم ريجوليتر أهان
many body process hanaan badan oo jirka sida koritaanka oo loo yaqaano arki doona growth hormone jira, reproduction hormone oo progesterone iyo testosterone aha, regulation of chemical substances oo salt iyo water iyo sugar inay joogtayeen wixii lamid. waxaan arki karnaa oo kale as a source of energy dhig karna protein source isha tamarta dhig karna la carbohydrate soo aha iyo lipids labadaba maadaama isku shaqeeyeen asagana waa la burburiyaa si uu soo daa energy si kastaba ha dhacday amino acids cannot be stored lama keeda karo body sida macna carbohydrate iyo fats. protein ka marka are normally used in source of energy loo isticmaalo condition starvation macna macluush marka imaato ayaa dib loo isticmaalay baahid. Third question, name the building blocks of proteins. waa amino acids differentiate between dipeptide iyo polypeptide waa dabar badan iyo laba dabaray. List three properties of protein saddex astaan ka sheeg waxaa loo yaqaan 10 ka soo mar. enzymes ka ugu daba marineena waa enzymes wax kala ma waa dheecaamaadka jirka dheefshiidka ka qayb qaata dheefshiidka ay gogol xaran ugu tahay waxaa loo yaqaan inaan aragno ama barano waa muhiim ayada. they are organic catalyst marka la hadaan qeexno waa organic waa walax organic noole ka timid oo dedejiya kuwaas oo dabiici asal ahaantooda ka soo jeeda protein. they are produced in living cells. unugyada nolosha soo catalyst they speed up or slow down way xawaara kor u dhigaan ama hoos u dhigaan the rate of chemical reaction oo ku dhacayo jirka ayagoo macnaha faragelinaynin waxa dhacaya. laba nooc ayaa jirta intracellular enzymes iyo extracellular. loo xalka lahaa waa in aan mid gudaha ka imaan intracellular markaan ka hadlayno oo intracellular aan ka hadlayno waxa dheena wax loo yaqaano intracellular ka waxaan ku sheegi karnaa waxa dheena wax loo yaqaano enzymes secreted waxa laga soo daayaa and use loo isticmaalo within a cell ka soo deeysta sagaan isticmaalo which are produce them ay for example respiratory ka kamid neef marayna ama respiratory respiration ku qand. okay waxa kale oo kamid waxa loo yaqaano kan this one extracellular asaga maxaa dhihi karnaa extracellular waxaan ku sheegi karnaa wax kala maahan enzymes aan dhehna enzymes ka maxay yihiin produce waxa laga soo daaya within cell ka soo daaya walaak is used waxa loo isticmaalaa outside of the cell ka banaankiisa loo isticmaalaa which produce them into the ayagana waa loo soo daaya markaas ka bacdi example waxa kamid ah loo yaqaan digestive ama dheefshiidka ayaa kamid ah iyo waxa loo yaqaan examples. okay enzymes ka sidee loo magacaabo enzymes sidee magac u bixinayna naming of enzymes maxaa dhahayna laba magac u bixinayna waxa loo yaqaan labadana u bixinayna waxa waaye magac marka u bixinayna enzyme travel naming oo ah qofka soo hindis in lagu magac daro iyo inaan isticmaalno ASE aan isticmaalno enzyme kasta waxa aan bedelina aan daba marin. habka ugu horeeya the method involves names given into the enzymes by the people who discovered them. waxay magac ku baxdaa ama magac loogu bixiyaa qofkii soo hindisa magaciisa. the names in ku dhamaado tusaale pepsin, trypsin, betaline kuwaas dhan waa magacyadu. some of these enzyme names kaas mar dambe ayaa la bedelay oo loo yaqaano modification lagu sameeyay. hadaba waxa loo yaqaano magaca ACE inoo doo marayeen waa modern method ka casriga enzyme lagu magacaabo ACE ku darayna meesha ugu dambeeyay substrate nooca cuntada ama substrate ama qashwa nooca cuntada waxa la isticmaalaa reaction ka dhacay which are enzymes catalyst kaasoo macna enzyme ku dadajinay. the following examples carbohydrate oo gooni soo marnay enzyme ka dhigi karna anagu gadaal uga darayna carbohydrates weena noqota. istaaga waxa kamid ah amylose bedel amylase ACE oo doo marnay. sucrose kan waxaan ka dhigaynaa saccharase. maltose kana ooska meesha ACE u bedelina maltase aan noqona protein kana protease noqona oo meesha la bedelayna oo kaliya. lipids kana ruuxida lipase ayaa la similar si lamid ah the reaction oo ka dhaxdhacay protein carbohydrate ka reaction ka dhaca lipids ka iyo protein inta soo sheegay enzyme kaas waxa ka dhaca waxa lagu magacaabaa reaction ka hydrolyse reaction ka dhaca hydrolyse aan dhahay. oxidation ku dhacayo oxidase aan dhahay. reduction ku dhacayo reductase aan dhahay. astaamaha uu leeyahay waxa loo yaqaan enzymes ka protein nature dabiici asal ahaan protein
they are therefore said waxaan dhihi karnaa affected by the temperature and pH waxaa saameyn ku leh heerkulka iyo pH enzymeska are substrate specific waa cunto gooni ah ka waxaan leenahay they are sufficient in small amount enzyme la soo daayo waxay kaaga filan they are not affected by the reaction they catalyst ma saameynayaan falgalka dhacayo oo ay dadajinayaan ama hoos u dhigaan xawaariis they can be used again and again dib baa loo isticmaali karaa wax badan they are catalyst that speed up the rate of cellular reactions cellka falgalka ka dhaca number 4 ayay macnaha kor u qaad they are not used up in the reaction by the catalyst reaction ka ayaga looma isticmaalo ama caadi looma isticmaalo one of these enzymes catalyst reactions are reversible enzyme catalyst lagu sameeyo la soo celi kara oo mararka qaar sidii soo la soo celi factors which affect the enzyme and control the reactions waxyaabaha saameynta ku leh the following factors affect enzymes waxaa saameeya faktorada soo socda ayaa saameyn buuxda ku leh number 1 temperature si gooniya ma waa iska soo gaabinaynaa heerkulkiisa enzymeska protein nature maadaama dhana sensitive waxay ku yihiin ama aad dareen u leeyihiin isbedelka heerkulka haddii they work best only when with a narrow range of the temperature farqi yar markuu dhaxay as the temperature increase the optimum temperature heerkulka ugu saxan obtain where the rate of enzymes reaction is maximum optimum temperature above the optimum temperature waxaa la reaction degrees hoos u dhaca destruction enzyme-ka asoo kala furfurmaa enzyme-ka the natural ay noqdaa dhismeek wuxuu ku sameysmaa heerkulka markuu gaaro 35 ilaa 40 ay ka badan sida sawirka when the temperature decrease haddii heerkulka hoos loo dhigo ka war the rate enzyme-ka asagana hoos u dhaca ka bacda inactivation ay noqonaa activation la rabo wax firfircoon low temperature can does not destroy ma burburi karaan enzymeska loogu talagalay inay dedejiyaan sida daraadeed waa in heerkulka la kordhiyo ayaa waxay imaanaysaa enzymeka asagana in la kordhi karo waxa loo yaqaan waxaan leenahay marka haddii however si kasta ma noqoto low temperature does not destroy marka enzymeka ma burburi karo ama temperature marka kor loo kordhiyo enzymeka wuxuu noqonaa active again marka heerkulka aad ku dhisto haddana dib ayuu active ugu noqonaa wax loo yaqaan okay optimum temperature iyo qaabku yahay iyo graafkuna waa pH ka soo sameeyo pH refers acidity to alkalinity of substance waxa base inay noqdaan iyo acid inay noqdaan noo sheega most enzymes have optimum pH ay leeyihiin 7 macnaha inay yihiin intracellular marka laga hadlayo pH kooda si kastaba ha noqotee some enzymes work best as acidic condition enzymada qaar waxay ku shaqeeyaan wax loo yaqaan acidic sida hydrochloric acid iyo waxna mid well others waxay ku shaqeeyaan ku wanaagsan alkali hadaba pH isbedelkiisa optimum ay asagana u baahan yihiin enzymka si loo activities hoos loogu dhigo extreme acidic alkalitic ayagana waxay sameeyaan in macnaha haleeyaan enzymka no specific waxa inuu qaas biyaa enzymeska wax qaas dabiici ahaan particular enzyme only particular substrate nooc gooni oo cunto gooni u dedeji kara shiidi kara for example saliva amylase marka soo qaadano only speed up to the breakdown of the starch or maltose starch waxay u bedeshaa maltose oo kaliya in other words si kala daan fiirinan two different enzymes cannot act in the same substrate to bring about similar product laba enzyme oo kala duwan hal substrate oo isku mid ah macnaha mid dedeji karaan shaqo isku mid ah kama qaban karaan haday u qabtaan hal product ma soo baxay product kala duwan qodobka u dambeeyo waxaan substrate concentration and enzyme concentration macnaha cuntadan badnaasheeda enzyme-ka asagana badnaasheeda ribanaanta labadooda si isku miisaamiyeen waxaa leenahay when I substrate concentration aan ka hadlayn it's used increase substrate markuu kordho the rate of the enzyme reaction also waa loo kordhi karaa si kastaba ha noqdo further increase substrate haddii la sameeyo concentration does not increase the rate of the enzyme reaction lama kordhi sida daraadeed can be explain it waxaa lagu sharxi karaa active sites of enzymes meelaha active ku when the substrate concentration increases substrate wala xadaan markii la kordhiyo macnaha represented or active sites ka enzyme are occupied loo baahan yahay this condition inay ayaga numberka ay sameeyaan molecules si limit factor u noqdaan with the enzyme molecules marka la sameeyo increase sameeyo ayadan this a proportional samigale noqonaa increase to the maximum rate inuu xadiga ay kordhiyaan sida sawirkan ugu cad tusaale intuu ahaa macnaha at the lower enzyme concentration kana higher enzyme concentration inta fiir rate of reaction rate intana substrate concentration ku isku xirey kana doo kordha kaasa la kordhay macnaha labadoodu waa in saa loo sameeyo however the enzymes are required in small amounts maadaama enzymeka looga baahan yahay cadad yar the speed of the rate of the reaction ayna firfircooni gelinayaan do not alter the equilibrium
بربر دعوة ميزان كمعناه واحد من خلط كلام ما بدل كلام كجذب انزيم كوفاكتور ان كوانزيم كوفاكتورز قد بمعنى على شقي يكو انزيمز وهي انزيم قال شو كوفاكتورز ان بروتينيوس سبستانس وراح بروتين which are activate the enzyme فرفعون الجليل most of the enzyme will not work without them enzyme كبدنا الان من الشقيق some of the cofactors metabolic metallic ions such as iron magnesium zinc copper where others in vitamins cofactors هذا مقصود include small amount عدد يرى له like enzyme sidoo kale factors waxa u baahan ama substance waxa noqon karta can be used again and again in dib loo isticmaalo substances marka effect waxay saameyn u keensanayaan enzyme and control action had falgalkan way mulaayaan this organic non protein molecules why that work association with particular enzymes waxay la xiriiraan shaqadooda enzyme gooni ah mane enzymes are derived from vitamins waxa laga keenaa vitamins enzyme inhibitors iyo exhibitors labada number waxa inhibition hada maqso across waxa dhacda when action markii falka of enzyme is slowed down by another substance aqaladeyn wax markii soo fargashtaan the inhibitors competes with a normal substrate wuxuu la tartama normal substrate ka cuntada caadiga ah ee active meesha active site ku tartama other case xaalada kalena inhibitors takes up wuxuu qaataba active site ku uga hormara enzyme permanently si joogta ayu meesha uga dhiga si waxaan kala qaybinaynaa competitive inhibitors and non-competitive inhibitors. Competitive inhibitors maxaa dhahaynaa these are chemicals oo wax chemical oo closely related to the normal substrate ay aad ula xiriiraan their shapes are very similar waana isla mid when both substrates and inhibitors and molecules are present markay isku dhiskaas xaadir ku noqdaan to compete of active site meesha firfircoon ay ku tartamaan oo macno kala orta that action marka enzyme ka slow it down falgalkaas enzyme ka hoos u dhiga inhibitors not normally affected sida caadiga ma sameeyo enzyme inuu stays at active site long xilli dheer than in the substrate inuu halkaas joogo the type of inhibition waxa wax carqaladeyna has no permanent effect of the enzyme action falgalada uu sameeyo ama ficilada uu sameeyo enzymes ka joogto kuma lahan wax joogto kuma lahan ana wax loo yaqaan inhibition is they cause waxa sabab can be overcome either midkood increasing of substrate in la kordhiyo concentration keeda ama hoos loo dhigo reduce concentration in labada hoos loo dhigo non competitive inhibitors maxaa la yiraahdaa non waxa la yiraahdaa they are called non competitive waa tartan kama dhaxay marka hore labadooda tartan ka dhaxay marka tartan kama dhaxay because they do not compete with each other substrate labadooda ma tartamaan ama substrate kala ma tartamaan they combine permanently with enzyme and molecules thus block into the active site si joogta ah ayay waxay ugu soo biiraan enzyme-ki waxayna block gareeyaan ama xiran active site this prevents taas waxay hor ilaalisa ama hor istaagtaa the enzyme from the interacting with the substrate inuu la firfircoon geliyo ama la falgal wax loo yaqaan inhibit substrate-ki iyo enzyme-ki inhibitors kaas waxa kamid ah bawson waxyaabaha sunta such as cyanide maadooyinka la mercury iyo sulfur arsenic compounds ayaa kamid ah list long oo joogi kara muddo dheer maana importance of enzymes ka muhiimada ay leeyihiin maxay tahay maxay noqon kartaa muhiimada enzymes ka leeyihiin waxaana enzymes ka speed up cellular reactions ka ayay macnaha xawaare geliyaan that proceed at pace waxay u sahlaan macnaha isku inay u shaqeeyaan with appropriate sustaining life habka ugu saxan nolosha u joogteenay enzymes not only speed up cellular reactions ka oo kaliya ma qabtaan shaqadooda also control way ma amraan way agaasiin this prevent taas waxay hor istaagaysaa violent incidents of the cell wax rabsha inay ka dhacaan ama qaladaada seerka inay ka dhacaan okay inaan dhameystirayo laakiin halka ku soo keena si macnaha maadaama ciwaanka ka hoose asaga page 29 soo bilan 29 geeni ciwaanka kale la soco waa nutrition in animals video gooni asagana ka dhigaynaa habka quudashada xayawaanaadka ka bacdi waxaan u guda galeynaa ama u tagi doonaa insha Allah videoga saddexaad aan isla chapter kan ka sameeyo doona digestion ka asaga gali doona sababtoo ah markaan fiiriyo in hal video inaan ka dhigo hadda hal saac ku dhowdahay hal saac ka badan ardaydu ku caajisay marka halka baan nooga balan insha Allah fasalka sida casharada ugu dhigo iskoolaadka inta ugu ma dhigo way ka duwan tahay sababtoo ah way kala duwan yihiin arday u joogtada casharo ku weydiisanayso macnaha evaluation ku sameeyay qiimeynayso wixii inay fahmeen in kala qiimeynayso su'aalo weydiinayso way markii fasalka macalinka casharka bixina oo nidaamka teacher
process ama teacher method kale isticmaalo saxdaan isticmaalna laakiin inta xogaa time consume waa jira oo waqtiga xogaa ina burinayno ardo badan ay casharadii rabaan hadana waxyaabo casharadii ay dheer yihiin marka hadii sharaxaada aan boobsiyo meelaha qaar aad fahmayso waxaan u boobsiyo waxaan dulmar ahaan waxaan kugu sameeynayaa ina ku cisho karto oo macnaha aad maanta oo dhan iska repeat illa aad fahamto iska celi karto maanta oo dhan oo meeshii aad fahmayso waa boobsiyo astrada repeat again aad ku cishid saaba u boobsiyo maadaama wax anjal yihiin taas wixii kale oo aad astrada ma aad fahmi karto ama anigu u boobsiyana waxaa laga rabaa inaad commentiga aad kasoo saarato oo aad tiraahdo meeshaas macna boobsiisa ku sameysay faahfaahinta marka soo sameeyo haduu ilaahay idmo taabano balana waxaan qaadanay cashirka koowaad ee loo yaqaan chapter 2 waxaan ka baxnay waxa loo yaqaan nutrients chapter 2 ka kooban yahay waa nutrition waxa loo yaqaan digestion waxaan ka baxnay hadda waxa loo yaqaan nutrients xitaa nutrition ki wila habka quudashada animalska ma ana gadin maxaan dhahnay nutrient maxaa la yiraahdaa waxyaabaha la quuto waxay dul saaran yihiin waxaan dhahnay hadaan soo dul maro ama cover ku soo sameeyo casharka saddex chemical life ka ayaan ka hadalno waxa la yiraahdaa chemical life marka dhahno ama aan ka hadlayno waxaan ku sheegnay saddex waxyaabood hal aan ku soo darnay walaxda oo koowaad aan ku sheegnay horta maadada chemical life waxaan dhahnay biochemistry lagu magacaabo option koowaad waxaan dhahnay wax loo yaqaan saddex ay ka kooban tahay waa inay noqdaan biochemistry gan carbohydrates oo aan qeexideedii iyo structurekeedii iyo tablekeedii iyo functionkeeda aan soo sheegay waxaan ku xijin wax loo yaqaan lipidska asagana inta ka taaban proteinski saddexda ayaa macnaha essential chemical life ka oo asaasiga waxaan ku darno wax loo yaqaan enzymes iyo hormones inta waa shan marka shanta ayaa waxay tahay muhiimad gooni ah haduu ilaahay min xoog saarto inta hadaa fahanto waxaad fahmi doontaa hadhow dheefshiidka intaan mid kasta dheecaanka qaabilsan inuu shiidiyo qaabka u shiido laakiin hal mid aan kasoo hormarinaa oo loo yaqaano animalska sida u qootaan animalska processka u qootaan si kala duwan yihiin ilkahoodii qaabdhismoodkoodii markaan fahano ayaan dheefshiidka si fiican u fahmi doonaa marka halka ku ekeysina casharka wixii tala iyo tusaale ah haduu ilaahay automatic ah hilmaamin ina share gareyso casharka asxaabta la wadaagtana hilmaamin subscribe ina dhahdo casharka si uu YouTube kugu soo galo emailkaada si toos ah oo macnaha adoo raadina hilmaamin waxaan leeyahay Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin nabad iyo barwaaqo ilaahay qalubteena ha isku furo ilaahay ha ka dhigo wadankeena wadamada macnaha giyaankiisa ana ka liidan ee horumarka ku tilaabsaday macnaha mid la tartama uma seera dad macnaha nolosha jecel horumarka jecel dalka Allah naga dhigo hada salaam alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa barakatuh oo kule hamogaanin ina macnaha si tabarucad ama free ah ugu barato maadooyinka sayniska gurigaada adoo jooga ama macalinka markuu ku soo dhigo fahmi weyso ina ku celisid Soomaaliya